Halyeyga reer Argentina Lionel Messi ayaa fariin qiiro lahayd u diray Barca kadib guushii weyneed ay ka gaareen kulankii El Clasico. Lionel Messi ayaa ka falceliyay guushii weyneed oo ay kooxda Barca ka gaartay kulankii El Clasico ee ka dhacay Santiago Bernabeu. Barca ayaa bandhig awood la muujisay ciyaartii ee Real kaga badisay 4-0 garoonkeeda Santiago Bernabeu maalintii Sabtida ahayd. Guushan weyn waxay Barca ka dhigaysaa inay 6 dhibcood hoggaanka horyaalka La Liga ku hayso. taasi oo xoojinaysa hoggaankeeda isla markaana ka dhigtay xilli ciyaareedkan mid aan la wiiqi karin awoodda kooxda Barca. Haddaba inkastoo Lionel Messi uu Camp Nou moogan yahay in ka badan 3 sano, haddana xiriirka uu la leeyahay Barca ayaa ah weli mid aad u xooggan. Xidiga iyo hogaamiyaha reer Argentina ayaa si dhow ula socday safarkii kooxda iyo guushii El Clasico, isagoo taageeray waqtiyo noocan oo kale ah kooxda si weyn ugu farxay guushii ay gaartay. Messi waxa uu ka falceliyay guushii Barca isaga oo ku dhex qoray bogga rasmiga ee kooxda ee Instagram-ka isagoo u dabaaldegay guushii weyneed ee kooxdiisii hore ay ka gaartay dhigooda Real Madrid. Waa guul aad u qurux badan ayuu soo qoray Messi oo ka falceliyay kadib guushii ay gaartay kooxdiisii hore. Dhanka kale, guusha dhowaan ay gaartay Barca ayaa sidoo kale soo jiidatay halyeygii hore ee Blaugrana Neymar. weeryaanka reer Brazil oo haatan la jooga kooxda Al Hilal ee Sacuudiga ayaa taageeray Barca, isagoo baraha bulshada ku muujiyay farxadiisa guushii ay ka gaareen kooxda Barca dhigooda Real Madrid. Neymar ayaa soo qoray fiiska Barca mar walba guul Barca ayuu raaciyay. Ruuxda halyeeyadii hore ee Barca ayaa weli ah mid saameyn xooggan ku leh safarka guulaha ee kooxda Barca, iyadoo Messi iyo Neymar ay si furan ugu dabaaldegayaan guusha kooxdoodii hore ay ka gaareen dhigooda kooxda Real Madrid oo si weyn u xifaaltamaan labada kooxood. Barca ayaa guul taariikhi ahayd ku gaartay Sabtidii garoonka Santiago Bernabeu kadib markii ay 4-0 dhagta dhiiga ugu dareen dhigooda wiilasha cadcadka ee Real Madrid. Ciyaar xiiso lahayd oo Barca ay u awood sheegatay dhigooda Real Madrid.